maxaad ka xasuusataa iskugu aada afar ka badan lama ogolo afar weli ma lagu yiri weli adiga ma ka soo qayb gashay sab amba kulan amba tacsiyo amba ziyaaro amba la bari amba maaragtay waxaad u taqaano haddaba waxaa ka jiro deegaankani waa deegaanka laanta buuro waa deegaan gob ah waa deegaan haddaad imaado aadan dareemi doonin wax la yiraahdo baahi amba gaajo cudurka cadow baahi waa cadow ay yiraahdaan Soomaalida haddaba halkani waxaa ka jira tacsida allaha u naxariistee Abu Taqadiijo Sheekh Xuseen Macallin Cusmaan oo ahayd qof mutacallimad ah ahludiin ah ahlu khayr ah jikadii dadka xerowga ahay iyo ahludiinka ahay ahlu khayrka ahay halkaasi ka soo jeeday jikadii maamuleysay maamulka jikadii heesay xerowga hooyadii ka naxaysa ayay ahayd allaha u naxariistee maanta dhammaan dadka qidmeehayo ee adeegay aad u jeedaan waa dadkii ay tacabtay waa dadkay waalidka u ahayd waa dadkay diinta ma aragtay ay ugu kaalmee jirtay si ay u bartaan dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay ayaa isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan halkaas aad idin muuqato jiingadaasi waa dugsigii Macallin Ismaan wax Macallin Sunuur asaasay kadibna ma aragtay hadda ay uu gacanta ku hayo ahlu khayrka weyn Macallin Xasan Macallin Maxamuud Macallin Ismaan wax Macallin Sunuur haddaba waxaad arki kartaa halkan markaad joogtid in ma aragtay dadku ay nolol habiya farxada jabi degana qurux badana oo ma aragtay aan waxba jahan misabsi stress aan ka jirin haddaba halkaani ayaa xoolaha nuuca ugu fiican ugu hilibka cooskaas daaqay carafta macaanka oo hilibka halkan laga kariyo ma malay kartidaan ku dhahay hal cad halkan aad ka cunto ayaad 30 sano oo ujeedaa halkaasi marqaasi quruxda badan ayaa waxa lagu karinayaa bariiska kadib ayaad waxa bariiska ayaaba ka macaan doon hilibka aad cunayso xitaa halkan cuntada waa ay kugu soconaysaa waa meel haba leh oo qurux badan oo fresh ah haddaba mahad ka gaartay dadkii ma aragtay soo abaabulay waxaanu leenahay halkaani Soomaaliya mar un soo booqdo waa deegaanka laanta buuro sidaas oo kale halkaani kama jirto tiishkeen warqadii dhiib istiraashakeen kama jirto intaasba haddaba istiraasho oo dhib la'aan ah ayaa halkan iska taalo geedaha ayaaba ma aragtay iska balbalaya caleemada ayaad ku dirtiranaysaa haddaba halkaani abaar iyo fakhri iyo baahi intaba kama jirto waa dhul waasac oo furan oo haba leh oo kaale iska araga haddaba haddii ay gacantaada dufun leedahay si tartiiba geedaas inta imaado caleemahaasi isaga tirtir halkaani waa deegaanka laanta buuro degmada Afgooyo gobolka Shabeellaha Hoose